inta kadib waxaan ku soo gabagabeynayaa dadweynaha Ifraax Xaaji October oo yana ka socoto xisbiga kulmiye garabka Stockholm ha soo dhawaatay insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا مرتي شرفته وروح ذا بدله اسكوتي مي سودوينتا هاي تولي عقدوميها حسبي ودري aad baan soo dhaweynaya Cabdiraxmaan Maxamed soo dhawow aan kula Stockholm soo dhawow من دوا واحد لا يرتين بانو ملاينا ما تاني وكلمية واحد شبيه الكورد بالورة شري الكورد كأنا شبيه مات وحوية واحد بدن بان سكودة إنا قدوميها إنتو إيمان شريبا إنا الراديو ولا شينا آد بان وعنا نشري مرو البغف والبورهر والدنيا إنه مركو صدح دار هان وهيي إنا الله كل ما آد بانو شعلا لكن ألا قدرين هذا البدل متشرتو إنتان أورا لها بعاقل كي يجيبها يدي إنتان شعلابا عاقل كي يجي آدو مهدسين هاي رونتي وحن شعلان لها إن رير سومالي لان سيدا أنه كالي أي نقطة إميكا قبل كتوغدير إنا ولا شيء أيا كأه قدي دا قبل كتوغدير قرب كهويتك أنا قلنا كل مياه مركا وين حسبيادو عيد والبقى نحمو قطع لكن هدي مركي اللي يسكوي ما دليب تودي لا وحوايا دتك قربها تشوجا غير سومالي لا عاد بيوكلا دارتين قدومية وحنا لنا وحكمتي دور الشديد سيدا سويتهاي أيضا مركي دم مركي لكلا دارتي أيضا نقولين إن الدب iskugu kaayo maartay soo celisaan laakiin waxaad lahayd qolada dabado lacagii keena soo shuba doorashadiina laga badinin hal qolalka hal furo intiiba waan sameeynaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin barwaaqay ku dhamaatay sidaad go'aankad ka gaadheen aad baan kaaga mahadcelinin laakiin si walba haato saddexdii musharax reer Soomaaliland musharaxiinta waxa idinku waad gasheen doorashadiini nin walba ilaahay wuxuu siiyay laakiin waxa weeye dadka yagii anigu xildhibaan baan ahaan doonayaa mustaqbalka tay alla ka dhigo dadka yagii xildhibaanada aha jaaniskii aan lahayn deena doo banaysan baan rabnaa idinku haddaad tiini ku guuleysateen oo aad ka soo baxdeen annaguna inaan istijaabino qolooyinkayga tartamaysay dasaasan idin sheegayna maalin walba waxaan naana maanta maxaa la yiri waxaan jecelahay inaad noogu dhaqsataan haddii alla qadaro ta kale waxaan reer Soomaaliland qurbaha jooga reer Sweden aan go'aan ku gaadhnay gudoomiye inaan noqono dad reer Soomaaliland oo isku xiran oo danta reer Soomaaliland ka shaqeysa waxa weeye wali lama arag xusbi kale goobtiisii ka hadlo laakiin maanta way dhacday wayna dhici doontaa insha Allah waxay naga dhaxeeyana waa calanka Soomaaliland ballanna waxaan idinka qaadayaa saddexda xusbi qaran waa qofkan ayidsaneen da Soomaaliland ma ayidsana waxa weeye saddexda xusbi qaran waxa weeye waa udubyada ay ku taagan yihiin reer Soomaaliland qofku wuxuu doonayaa aaminsanaado oo xaq buu leeyahay wuxuu xusbigu doonayay halkan ba sagaal xusbi baa ka jiro qofku mid ku doonayo qaataa laakiin waxa weeye yeynay nagu sii fogaanin xusbiyadu yeena ku sii fogaanin qabyaaladii bayna gashay maxay ahayd tolay dhibaatooyin badan baa jira dadka dagaal laga hadlay hadeer dagaal baa laga hadlay dagaalka Allah inaga qabooji oo dagaalka inaga lacagta dirnaa soo inagu lacagta ma diro lacagta inaga dirna lacagta indirayno oo ay labada qolaba ay midba midka kale hubka iyo teknikada u iibinayaan qurba joogo in iska joojino aynu sameeyno nimanka wadanka haya ee dawladda askarta ah inay maxay tole mushahar u qarno oo in guriga u dhisno oo ka dagaalka ku dhintay aynu u sameeyno inuu guri hoy u helo hadayna qurba joogtahay ta sameeyno hantida aynu u sameeyno kii inaga dhinta ama kii dhaawacma aynu yiraahno wadankaadu jihaaday ama kuwii hore jihaaday mujaahidiinta ay hadeerte marka tifiyada laga soo deynayo niman dhibaataysana oo indhala oo maxay tole lixaadkoodii la oo aan hanti haysanin cidna aysan ogeyn
marka kuwa kale dhimanaya ama la dhaawacaya in lacag ugu dirayna waxa ka fiican inaynu nidhaahno qofka inaga dhibaataysanba aynu wax siino waxaan anagu hadda ku tashanay anagoo garabkii haweenka ee kulmiye ku hadlaya iyo garabkii wadani insha Allah uud ma laha laakiin waan sameeynaa hadii la yiraahdo gabadh baan sameeynaa hadii la qadaro inaanu ka shaqeyno midnimada reer Soomaaliland waxaan codsanayaa intii halka wada fadhida dad badan oo reer kulmiye baa jooga anigu kaligay ma joogo dad badan oo reer kulmiye baa jooga daaqalku waxa uu jooga gudoomiyaha iyagii uu jooga isaguna maxay tolay Norway waxaan leenahay waxaan naga diyaara inaan idin midayno idinkuna xafladaha ay kulmiye leeyahay ama qaran ku leeyahay ama maalin sumad inoola haday 26 Juun tahay haday 18 May tahay haday maalinta haweenka tahay maalintii aynu dib isku dhaqayna ay tahay inay ku midaysanaano insha Allah bismillaah karin saasaan ka codsanaya hadalkaydu ku badin maayo waa soo dhaweynaya gudoomiyaha waxaan ilaabi apologize baan ka bixinay marwadii baa joogtaan cidna magacaabin marwadana aad baan u soo dhaweynaya soo dhawaan ku leenahay waan soo dhaweynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh